Xalay waxaa la ciyaaray kulamo aad u xiiso badan oo ka tirsan wareegga 16-ka Europa League waxaana dhacay natiijooyin la yaab leh iyo kuwo la filayay. Wargeysyada ugu waaweyn Yurub sida Reuters, The Guardian iyo TNT Sports ayaa si weyn uga hadlay sida ciyaaryahanadu isu dhaceen iyo kooxaha muujiyay awoodda ugu badan. Maanta waxaan si qoto dheer u falanqeyn doonaa kulamadii ugu waaweynaa, waxa ay warbaahinta kubadda cagta ka qortay. Haddii aan ku bilaabno kulanka weyn ee u dhexeeya kooxaha Aston Villa iyo sidoo kale Lille, kulanka ugu hadalhaynta badan waxa uu ahaa kulanka Aston Villa 1-0 kaga adkaatay kooxda Lille. Wargeyska Reuters ayaa qoray in Aston Villa ay guul muhiim ah ka gaartay kooxda reer Faransa kadib markii ay weeraryahankooda kooxda Aston Villa Ollie Watkins uu dhaliyay goolka guusha daqiiqadii 61aad. Guardian Ingiriiska ayaa sheegay in Villa ay ciyaartay ciyaar aad u muhiim ah, gaar ahaan difaacooda oo adkaa. Tababaraha Villa Unai Emery ayaa mar kale ku muujiyay khibradiisa tartamada Yurub, waayo waa tababare horay ugu guuleystay Europa League dhowr jeer. Villa waxay dooratay xeelad difaac iyo weerar degdeg ah, Lille waxay haysatay kubad badan laakiin fursado cad ma helin. Goolhayaha Emiliano Martinez ayaa sidoo kale u ciyaaray si geesinimo ah, wuxuu sameeyay dhowr badbaado oo muhiim ah. Warbaahinta Yurub ayaa sheegtay in natiijadan Aston Villa ay siinayso faa'iido weyn ka hor kulanka lugta labaad ee England lagu ciyaari doono. Kulanka labaadna saaxiibayaal wuxuu u dhexeeyaa kooxaha Roma iyo Bologna. Kulankani waxa uu xiiso lahaa waxa uu u dhexeeyay kooxaha Bologna iyo Roma oo bareejo ku dhamaatay min 1-1 gool. Warbaahinta Reuters ayaa sheegtay in Bologna ay bilow wanaagsan sameysay kadib markii ay dhalisay goolka hore, laakiin Roma ayaa soo laabatay qaybta labaad iyadoo Lorenzo Pellegrini uu dhaliyay goolka barbaraha. Sky Sports ayaa falanqeysay in Roma ay khibrad badan u leedahay tartamada Yurub, taasoo laga yaabo inay ka caawiso kulanka lugta labaad. Kulankani waxa uu ahaa mid aad u xiiso badan, labada kooxoodna waxay si fiican u dagaalameen khadka dhexe. Roma waxay isku dayday inay ciyaarta maamusho, halka Bologna ay ku tiirsaneyd weeraro degdeg ah iyo counter-attack. Saaxiibayaal, ciyaarta saddexaadna waxay u dhaxaysay kooxaha Stuttgart iyo kooxda Porto. Kulankan ee muhiimka ah waxa uu ahaa mid aad u xiiso badan. Kooxda Portugal ayaa ka guuleysatay kooxda reer Jarmal iyadoona kaga adkaatay guulo gaaraya 2-1. TNT Sports ayaa sheegtay in Porto ay mar walba muujinayso sababta ay had iyo jeer khatar ugu tahay tartamada Yurub. Porto waxay caan ku tahay khibrad Europa League iyo sidoo kale Champions League. Falanqeyn ahaan, Stuttgart waxay abuurtay fursado badan, laakiin Porto waxay ahayd mid wax ku ool ah marka ay helaan fursadahooda yar-yarka ah. Warbaahinta Portugal waxay sidoo kale sheegtay in Porto hadda ay ka mid tahay kooxaha ugu cadcad ee koobkan qaadi kara. Saaxiibayaal, ciyaarta saddexaadna waxay u dhaxaysay kooxaha Real Betis iyo sidoo kale Panathinaikos, mid ka mid ah ciyaaraha yaabka ugu waaweyn ayaa xalay dhacay markii Panathinaikos ay 1-0 kaga garaacday kooxda Real Betis. Reuters ayaa sheegtay in kooxda reer Greek ay ciyaartay qayb ka mid ah ciyaaryahan la'aan, iyadoo ku ciyaaraysay 10 ciyaaryahan. Si kastaba ha ahaatee, waxay heleen rigoore daqiiqadihii ugu dambeeyay oo ay ka dhaliyeen goolka guusha. The Guardian ayaa sidoo kale wuxuu tilmaamay guushan mid muujinaysa dagaalka kooxaha reer Greek ay ku hayaan kooxaha kale. Real Betis waxay ahayd kubad badan, laakiin difaaca Panathinaikos ayaa ahaa mid aad u adag. Saaxiibayaal, kulanka kalena wuxuu u dhexeeyay kooxaha Nottingham Forest. Kulanka kale ee la yaabka lahaa waxa uu ahaa Nottingham Forest ay kooxda Denmark kaga adkaatay 1-0. Reuters ayaa qoray in Gio Gu-sung uu dhaliyay goolka guusha daqiiqadii 80aad. Forest waxay abuurtay fursado badan laakiin ma dhammaystirin. Warbaahinta England waxay sheegtay in tani ay tahay niyad-jab weyn oo ku timid Forest. Ciyaartii shanaad, Huddersfield, Celta Vigo iyo Lyon waxay galeen 1-1. Celta Vigo ayaa dhalisay daqiiqadii goolka hore, laakiin Lyon ayaa barbaraysay daqiiqadaha dambe. TNT Sports ayaa sheegay in Lyon ay muujisay dulqaad iyo khibrad badan. Saaxiibayaal, haddii aan fiirino aragtida wariyahii weyn ee Fabrizio Romano, saxafiga caanka ah ee kubadda cagta Fabrizio Romano ayaa sidoo kale ka hadlay tartanka Europa League. Romano wuxuu sheegay in sanadkan tartanka uu yahay mid aad u adag, kooxooyin badan ay fursad u leeyihiin inay ku guuleystaan. Wuxuu si gaar ah u magacaabay kooxaha sida Aston Villa, Roma iyo Porto, kuwaas oo uu sheegay inay yihiin kuwo khatar badan marka la gaaro wareegyada dambe.
Marka la eego kulamadii xalay, waxay muuqataa dhowr arrimood oo muhiim ah. Marka koowaad, kooxaha leh khibradda Yurub sida Porto iyo Roma ayaa weli muujinaya awood. Marka labaad, waxaa dhacay natiijooyin lama filaan ah sida kooxooyinka Nottingham Forest oo laga adkaaday. Marka saddexaad, inta badan kulamada farqiga u dhexeeya waa min hal gool, taasoo ka dhigaysa lugta labaad mid aad u xiiso badan. Warbaahinta Yurub ayaa waxay sidoo kale isku raaceen in wareegga Europa League uu noqon karo mid ka mid ah kuwa ugu xiisaha badan sanadihii ugu dambeeyay. Europa League sanadkan wuxuu noqday tartan aad u adag, kooxo badan ayaa weli fursad u leh inay gaaraan kwart-finaalaha. Kulamada lugta labaad ayaa go'aamin doona cidda sii socon doonta iyo cidda hari doonta. Taageerayaasha kubadda cagta ayaa sugaya kulamo kale oo xiiso leh todobaadka soo socda. Saaxiibayaal, waad ku mahadsantahay daawashadiina. Fadlan subscribe iyo saar like garee fiidiyoga. Mahadsanid.